Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Arday badanaa waxay aad u soo codsadeen maxaa ah sida proposalska loo qoro. I know inaad qaar badan yaqaanaan. Aniga ma ihi macallin ama wax walba dhameeyey, laakiin arday badan oo waxaa jirta u baahan in gacanta la qabto oo dhalinyaro ah oo ku cusub oo freshies ah ama dugsi sare ka soo baxay oo master degree raadinayo oo u baahan mentorship wixii lagu dhahan yahay in loo sheego. Waxaana rajeynaya in ardayda kale ay kusoo biiri doonaan inay ila caawiyaan ardayda noocan oo kale ah. Marka muxuu ahaa sidee baa loo qoraa ee, warbixin caalami ah oo lagu guuleysan karo. Writing a winning master's research proposal sidee baa loo qoraa cilmi baaris aad masterka ku heli karto oo guul leh. Marka tallaabooyinka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah comprehensive step by step guide crafting compelling research proposal for scholarships application. Haddaa scholarship u qoranaysid mid soo jiidasho leh, cilmi baaris soo jiidasho leh, sidee baa ku diyaarin kartaa adigoo ugu talagalaya inaad ku codsato deeq waxbarasho ama inaad muxuu ahaa admissionka ku hesho. Haddii aad codsanayso deeq in lagaa bixiyo lacag ama aad raadinayso inaad jaamacad ku hesho master degree, waa noocyadan oo kale ayaa u qoraysaa proposalka iyo shuruudaha la iska rabo. Marka muxuu ahaa haddii aan ardaydaas oo kale focus ka saarayno waa maxay cilmi baaristan oo kale laga rabo ardayda muxuu ahaa master degree codsanaysa si ay u helaan deeq waxbarasho. Cilmi baarista la weydiiyey maxay tahay, waa maxay cilmi baarista oo kale. Cilmi baarista waa concise academic document, documenti laisu soo ururiyey, xog ururin laisku soo ururiyey oo academic ah. Typical ranking intaas taasoo ka tirsan 1000 ilaa 3000 oo xarfood, 1000 to 3000 words. Ma la rabo wax badan inaad qortid oo buuga qoraanta wax akhrinta badan dadku waa naceen waa la soo koobaa. Haddii aan ku darano midkii maalin dhaweyd oo Zurich proposalka ah wuxuu ahaa hal page ama hal page iyo bar. Marka muxuu ahaa 1000 ilaa 3000 oo xarfood maxay ka kooban yihiin? Waxay ka kooban yihiin institution requirements. Macadka adiga doonayso shuruudihiisa maxay yihiin? That outlines your intended research projects oo ayaga kaa soo codsadeen inaad samaysid cilmi baaris. Si aad adiga u sheegto inaad diyaar u noqonayso adigoo markaas exercise gareynayo oo caddeynayo diyaar garow inaad academic work qaban karto ayaa lagaa doonaya cilmi baaristaas inay ku salaysan tahay oo muujinayso it serves as a roadmap for your master dissertation and demonstrates your readiness for advanced academic work. Muxuu ahaa projectkaas yar oo la qoraayo oo 1000 ilaa 3000 oo xarfood ka kooban wuxuu tusinayaa jaamacaddaas inaad diyaar u tahay oo aad ku muujisid karti iyo hufnaan in aad diyaar u tahay inaad samaysid dissertationka jaamacaddaada hadhow markaa ka baxid. Haddii deeq waxbarasho aad u dirayso oo panelka guddiga u fariisto deeqaha waxbarasho oo kala doordoornaya ardayda u diraysana researchkaaga waa inuu ahaadaa mid ayaga ka dhaadhicinayo oo adigu aad ku dardargelinayso 3 arrimood oo critical ah. Feasibility waxa waa aragtida. Can you actually complete this? Aragtidan uu ka kooban tahay cilmi baaristan qof dhammaystiri kara ma tahay? Originality waxa adiga leedahay oo organic ah ma tahay? Does it contribute something new? Ma waxay wax ku soo kordhinaysaa dhibaato cusub oo jirta ama mashruuc cusub oo wax lagaga qabanayo. Strategic fit istiraatiijiyadoodana miyay daboolaysaa oo ku filan tahay? Does it align with the supervisor expertise program strengths and funder priorities? Dadka adiga ku tixgelinaya guddigaas fariisanaya ama dadkaas funding kaa bixinaya waxbarashada ujeedooyinka ay ayaga dhigteen ma ku salaysan tahay? Marka 3 qodob aad fiirinayso waxa waa feasibility, originality and strategic fit. Think of it ka fikira lagu dhahay both promise and plan. Qorshe ahaan ka fikira lagu dhahay inaad ballan qaadaysid qorshana aad leedahay adigoo tusinayo reviewerska exactly what they intend to study. Waxa adiga rabtid inaad baratid what it matters to the field. qiimaha u leedahay fieldkaas aad wax ka baranayso. How you will execute
it methodologically sidee adiga u soo afjaraysaa guushan ku salaysan aqoonta aad markaas doonaysa inaad barato what valuable outcomes you expect to achieve maxaa rabtaa oo faa'iida oo ka soo baxayo oo aad rabtaa inaad guushan ka gaarto getting started meeshan waa muhiim muxuu ahaa sidee baan u bilaabi karaa purpose and audiences ujeedadeedu maxay tahay aad fiirine yaase ah dhegaystayaashiida hadba ujeedada meesha ku socoto waa identify your readers haddee dadka markaasiita ku dhegaysanaa ama aa u dirayso oo akrinaayo proposalkaada your proposal will be reviewed by admission tutors dadka iskoolka jaamacadaha dadka qoro admission teamka tutorska ayaa muxuu ahaa eegayo potential supervisors guddi oo kormeerayaal ah scholarship panel members guddi oo go-aan ka gaaro scholarshibyada deeqaha sida loo siinayo dadka oo kala dooranaya ardada each brings different priorities dadkaas kooxahaasiito dhan oo wada fiirinaya proposalkaaga waxay kusoo darayaan different aspects ay ka fiirinayaan dhinacyo badan ay ka fiirinayaan academic rigor qofkan diyaar ma u yahay academically koorsadu qaadanayo researchga cilmi baaristan uu sameeyey ma qusaysaa koorsadu qaadanayo lacagta annaga ku bixinayno ma istaahilaa qofkan in lagu maalgeliyo number 2 review requirements mar walba waxaa fiirinaya jaamacad kastaba wax gooni yeelaan subject kasta oo adiga aad baranayso wax gooni u leeyahay shuruudaha iska aqrinaya soomaalida wax akhriska ma ku fiican wax akhris haddaad baratid adduunyada waa guulaysanaysaa carefully examine the funder of the university guidelines documents qofka markaas funding kaa bixinaya haddii sida mastercard oo kale kuu funding ka bixiyo waa jaamacadihii ma aha European Unionka jaamacado badan ay ka bixiyaan lacagta muxuu ahaa waxaa lagu yiri qofka lacagta markaas kaa bixinaya shuruudaha u qoran fiiri hadday jaamacad tahayna shuruudaha u qoran aad u fiiri documentigoodu ku qoran yahay note the word limit ogow inay xarfahaagu limit lahaadaan waxa loo iska daldalay ama la yareynayo lama rabo inaad ka yaraatid lama rabo inay ka tira badnaadaan lagama rabo required template format waxaa ku qoran proposalkii kusoo qor templategaas waa inuu intaasoo megabyte ahaadaa waxaas dhan loo dhahaa shuruudahaasi raaceen deadlineka goormee waa inaadan ka gudbin oo aadan ka hor aad dib uga dhicin deadlineka waqtigiisa mandatory sections waxaa jira meelo oo mandatory ah oo aadan ka gudbi karin shuruudaas iyo shuruudaas qualify ma noqonaysa haddaadan kusoo darin mashruuca cilmi baaristaada lagu dhahaa following this precisely haddaa kuwaanid shuruudaha dhan aa hadda kuusoo sheegnay aad si taxadir lagu raacdo demonstrates professionalism oo qof professionalna aad tusisa inaad tahay waa guulaysanaysaa number 3 tailor your approach sida adiga isu soo saari lahayd ama dadkana u gaari lahayd qaabee tailor garay sidee u tailor garaynaya understand what each stakeholder values dadkan oo hore aan kugu soo sheegay number 1 oo tutorska potential supervisorska panelska ah maxay rabaan dadkan ka qayb qaadanaya dhan maxay eegayaan qof walba shaqadiisa maxay tahay waa inaad fahantaa understand what each stakeholder values muxuu qiimeynayaa guddigan shaqada ku leh processkaaga supervisorska what methodological soundness ay fiirinayaan dadka supervisorska maxay fiirinayaan inay maqlaan founders want alignment with their mission kuwa lacagta bixinaya oo fundingka kaa bixinaya jaamacaddana maxaa shuruud ah oo arrintooda say ay lacag ku bixiyaan an institution want capable student who will succeed macad kasta wuxuu rabaa arday guuleysanaya arday kasta iskama qaadanayo arday aan diyaarsanayn la qaadan maayo oo u diyaarsan waxan dhan oo la gelinaa marka muxuu ahaa critical first step ugu muhiimsan oo qaadaysa waxaa ka mid ah before writing a single word intaada hal xaraf qorin muxuu ahaa truly understand who will read your proposal waa inaa ogaataa audienceskaga dhegeystayaashaada kuwa aqrin doona proposalkaaga and what criteria they will use shuruudaha ayay isticmaali doonaan inay dadka ku kala xushaan foundation shapes of every subsequent decision go-aankooda muxuu ku salaysan yahay intaada hal xaraf qorin picturekaasaa fahmaysaa oo aqrinaysaa okay from board interest to focused question dadka oo guud ahaan danta guud iyo su'aalaha muhiimka ah number 1 waxaa isweydiinaysaa list your interest danahaaga qoraysaa begin with 3 to 5 subject area
3 ilaa 5 subject bas aad dooranaysaa. You are genuinely passionate about. Adduunyada waxaa la ogaaday code iyo basic Soomaalida ay barteen looma baahna. Qofku wuxuu jecel yahay uu ku fiican yahay. Qof walbaba Ilaahay wuxuu siiyey skills gaar ah. Waxa adiga passion ku tahay aad jeceshahay ka diyaari 3 ilaa 4 subject oo adiga aad jeceshahay that aligns with the program or the funder's priority. Adoo markaas dooranayo dadka lacagta bixinayo, deeqda bixiyo oo waxbarashadaada bixinayo ama programka aad qaadanaysa. Review recent journal abstracts. Journalada ugu dambeeyay fiiri. Course modules coursadani maxay dadka baraysaa. Description to conform fit. Waxay meesha ay u socdaan dadkan waa inay fit garaysaa adiga ujeedadaada. Number 2 select one viable area. Dooro hal arrin oo qiimo leh. Use a topic. Topicaaga hal xaba that matches your background and skills. Kaasoo ku salaysan waxaa soo baratay iyo xirfadaha adiga aad leedahay. Fills a clear gap in existing literature or address practical problem. Topicaasito oo muxuu ahaa literature ahaan tusinaya oo qeexaya practical problem. Dhibaatada ka hadlaysa sida practical u tahay oo loo taaban karo. Unfeasible given available time. Iyo in isbedelka adiga aad rabto inaad samayso goorma ayuu aragti sax yeelanaya waqtigiisa go'an. Available time. Resources maxaa la gelinaa u baahan yahay iyo methods qaabkee loo qabanayo. Narrow systematically. Soo koob oo soo narrow garay. Define your broad area. Haddee broad ahaan si qeexan oo caddeed waxaa qabanayso until you can describe it in a single specific sentence ilaa aad muxuu ahaa ku soo koobto hal kelmad. Hadda for example waxaad dhihi kartaa Muqdisho waxaan ka qabanayaa displaced campska dadka ku jiro hooyooyinka yaryar oo muxuu ahaa maternity-ga ama inaan baro nafaqada carruurta hooyooyin under age ay carruur dhalaan marka muxuu ahaa guud ahaan general ka soo hadlay specifically ka hadlay statistical ka hadlay ilaa hal sentence aad ku soo koobi karto ayaa ka hadlaysaa. Haddaa halkiisi joogtid water problems ka hadlaysaa sida loo xalin karo ka hadlaysaa waxaas ka hadlaysaa ilaa specifically hal sentence ku soo koobi kartid. Keep narrowing until you scope in manageable within master's time frame. Marka saas scope ballaaran yahay waa soo dhuubaysaa saasaa usoo dhuubaysaa ilaa uu xalka iyo timeka iskugu soo biishubtaa. Muxuu ahaa craft your questions. Su'aalahaaga marka horeba sii shaandhayso. Transform your topic ka hadlaysid precise ka dhig mid oo kooban researchable questions oo ay ku saabsanta wax cilmi baaris su'aalo ah. Strong questions use format like to what extent, how does it work, say u shaqaynaysaa ilaa xuduuday shaqayn kartaa, maxaa loo sameynayaa, cause-ka oo sababta oo keentay, perception-ka dadka ka qabaan iyo process-ka la maray. Intaas intaa sameynaysaa. Muxuu ahaa waxaa ku xigo defining clear objectives, hypothesis. Adigoo objectives-kaaga ama ujeedadaada caddaynaa. Research objectives-kaaga muxuu yahay? Ujeedada research-kaaga muxuu yahay? Develop 3 ilaa 5 concise bullet points qoranaysaa. 3 ilaa 5 aad qoranaysaa. Muxuu ahaa failkan waxaa idiin soo dhigi doonaa linkiga waxaa idiin soo dhigi doonaa videogan hoostiisa description-ka idiin soo dhigaa iyo kuwo kaloo badan oo magaalada Muqdisho, magaalada Hargeysa midaan ka sameeyey oo tusaale ahaan sambalis oo aad raacaysa project-kaaga iyo midkan oo ah midka guud oo aad shuruudihiisa raacaysa. Af Soomaali badanaa ma ku diyaarin kari because af Soomaaliga maxaana AI aan badanaa ku suubiyaa presentation-ka way ugu dhib badan tahay haddaan saa af Soomaali u subo. Af Soomaaligana waa dheer yahay marka badanaa ma suubin karo. Waxay ugu qaadanaya 6 page ama 5 page meeshaan ku suubin lahaa 15 page ugu noqonaa. Demonstrating significance why it matters. Adigoo exercise gareynaya oo caddaynayo waxaaga inay yihiin wax faa'iido leh iyo why muhiim u yihiin. Academic significance waxaa gelaysaa waxaa caddaynaysaa specific gaabka problemkan jiro muxuu ahaa gaabka oo keenay inuu jiri waayo. Research-kaaga muxuu address gareynaa muxuu qeexaya muxuu taabanayaa
maxayna dadka garanaynin what do we not yet understand maxayna dadka fahmin oo dhinaca angalkee ka tusinaysaa ilan badanaa waa laga hadlay splacidka water hargeysa researchyo badanaa laga qoray laakiin adiga angalkee rabtaa inaa waxan ka tustid dadka oo hore aan loo fahmin what debate remains unsolved doodee ayaan weli la xalinin what population or context has been overlooked bulshadee ayaa aan laga ilduufay ama aan aad loo eegin situate your work within current scholarly conversation muxuu ahaa xaaladaadii waxaana qorays ku qiime dadka scholarshipyadan ujeedooyinkooda siday tahay showing you understand the field frontier adigoo tusinaya inaad tahay safka hore dadka kaga jiro oo problemada xallin karo oo qof muhiima arrintaan intay u tahay practical relevance practical sidee loo qabanaa ay muhiimada haddee fundingka yani baaritaanadaada sida ay muxuu ahaa policy decision makerska dadka oo go-aanka gaaro mashaariicda bulshada warshadeynta public understand bulshada fahamkeeda waxaasoo dhan sidee uga faa'iidaysan karaan muxuu ahaa cilmi baaristaada sidee shaqadaada ugu xirnaan kartaa dunida saxda ah oo challengeska ah potential solutionka oo raadinaysa xalalka saxda ah founder alignment tan muhiim waa hadba marka muxuu jaamacadaas ama maalgeliyahaas ayaa ujeedooyinku dhigtay shuruuduhu dhigtay sideebaa ula simi kartaa adiga waxaa qorayso scholarship application hadday tahay muxuu ahaa mar walba waxay ku xiran tahay researchkaaga wuxuu ku xiran yahay significance to funders stated aims and priorities haddaa scholarship ahaan researchka cilmi baarista u sameynayso waxay ku xiran tahay hadba shuruudaha ay ayagu dhigteen iyo waxa ay qiimeynayaan whether that's capacity building hadday tahay capacity building miya gender equality may ka hadlayaan sinaantii cadaaladda may ka hadlayaan oo rag iyo dumarka digital inclusion may ka hadlayaan inay priority siinayaan ayaga sida dadka loogu dari lahaa arrimaha digitalka sustainable development may ka hadlayaan mission crucial areas may ka hadlayaan show how funding your research advance their goals sidee ayaga goolka ay leeyihiin oo researchkaaga u habeyn karaa ama kor ugu qaadi karaa ama guul ay uga gaari karaan marka cid walba waxbaa u qoran literature review iyo methodologyga the core alaka maxaa mar fiirinaysaa literature reviewga iska fiirinaysaa summarize 6 ilaa 10 key sources qodob oo aad ku dhisayso xaaladda aqoontaada structureka oo aad ku sameynayso sectionkan 2 ilaa 3 paragraph ayaa ka dhigaysa that move from what's known taasoo aad kaga sii ambaqaadayso waxa la ogyahay wixii hore u qornaa what's unknown maxaan la ogeyn mashruucan aad ka hadlaysa cilmi baarista aad ka hadlaysa iyo maxaa adiga kusoo kordhinaysa your contributions include recent work shaqooyin aad waadhowid qabatay ku dar last 5 years ugu yaraan 5 sano ugu dambeysa to demonstrate currency xaaladda hadda taagan adigoo kusoo qabanayo 5 sano ugu dambeysa you are showing awareness taas waxay ku tusinaysaa inaad qof ka waraayo waxana ka hadlayso xalkaa u raadinayso oo cilmi baarista ka samaynayso qof xog ogaal u ah inaad tahay ayay caddaynaysaa muxuu ahaa waa inuu ahaadaa mid kooban oo muxuu ahaa soo jiidan kara cilmi baaristaada not writing an exhaustive review يعني mid يعني review in laga raadinayo maaha laakiin waa ina adiga darajadaada iyo aqoontaada iyo awareness-kaaga iyo xalka dunida aad kusoo kordhinaysa angalka laga arkayo inaa waxaas dhan ka kooban yihiin detailing method section tan ayaa haddana usii qeexaysaa sectionada meeshan ayaa ah feasibility meesha ay ku dhimato ama ay ku noolaato marka feasibility study samaynaysa be explicit and specific hadalkaagu ha ahaado mid go-an oo la taaban karo approach qualitative ha wax qiimo leh oo si lagu gaaro approach lagu gaaro quantity si cadad mixed methods waxyaabo oo methodyo isku darsan data resources xogta ayaa raadinaysa interview survey hore loo sameeyey maxaa archiveska adduunka ku jiro experiment maxaa laga sameeyey maxaa observations maxaa laga sameeyey
wixii hore u jiro oo recordada adduunka ku jiro existing data set ayaa raacaysa sampling marka adigana waa tusaaleynaysaa waayo hagee sidee ayay uga qayb qaadan karaan many participants what that sample size is appropriate siduu kaasna ula align garayn karaa uu si sax u noqon karaa collection waxaa ururinaysaa instruments xogaha ama qalabyada jiro oo ay ka mid yihiin questionnaire su'aalaha interview guides timeline-ka logistic maxaa loo baahan yahay analysis waa muhiim name a specific technique waxaa sheegaysaa cilmi jiro ama maxaa la dhahaa tactica jirto technique jiro sidaa ku analyze garayn lahayd waxaan oo loo ogaan lahaa regression content analysis sidee loo ogaanayaa isbedelka uu soo kordhinayo markaa waxaan samaynayso toolisk waxaa ku aad sheegi kartaa aad mission garayn kartaa software oo relevant ku ah arrintan address access to sites participants ethical approval language wax saas oo kale iyo permissionka qabanaysaa waa waddadaa u maraysid winning research markaa suubinaysid markaa muxuu ahaa budget iyo timeline iyo ethics maxaa sharciyan ah sidee muxuu ahaa loo isticmaali karaa ethically timelineka waa muhiim budgetka ku baxay waa muhiim ethics maxaa sharci ahaana hal bil ilaa 2 bilood completionka proposal finalizationka ethical approval applicationska bil ama 2 bilood waaye waxaa lagu siinayaa qisha lagu siinayaa bisha 6 ilaa bisha qaybta labaad waxaa waaye bisha 3 iyo bisha 9 bisha 3 ilaa bisha 5 data collection aan suubinaa faceka fieldwork aada survey aan soo suubinaa interview aan sameynaa wixii hore u jira data oo macluumaad ah oo xareysnaa oo research aan raadinaa bisha 6 bisha 8 talaabada 3 data cleaning processing systematic analysis using choosing methods adiga methodka aad dooratay soo ku qoraysaa meesha talaabada afraad waxaa waaye bisha 9 bisha 10 waxyaabihii aad soo heshay findings yani xog ururinta aad soo heshay ayaa qoraysaa kadibna discussion aad ka gelay interpretation chapterada muxuu ahaa aad sii faahfaahinaysaa bisha 11 iyo 12 oo talaabada 5 ah thesis-kaaga finalization ku sameynaya revision aad ku suubinay dib aa u ege proofread aan ku siinay iyo submission aad suubinaysaa marka resource iyo budgetka waxaa covering letter travelinka equipment ku baxayo transcription software license ethical consideration na waa loo baahan yahay hadda wax walba in ethical ahaadaan qeex oo ku cadde address consent procedure confidentiality measurement sida xogta loo ilaalinayo vulnerability safeguarding haddii caruur ku jirto waxyaaba oo waxaa jira safeguarding u baahan waddankan oo aan la qeexin data protection dhibaatooyinkaa soo qaada see u ilaalinaysa GDPR inaad ku salaysid waaye host countryga waddanka oo arrintan loo gudbinayo regulationkeeda raace conform you will obtain institutional ethical approval before commencing researchkaaga intaad u gudbin taas shaqiyadaasi raacaysa waxaasoo dhan la sameynaa expect outcomeska muxuu yahay iyo impact ku sameynaa cilmi baaristaada maxay soo saaraysaa master thesis academic journal articles conference presentations xitaa ku sameyn kartaa markaa research saas u diyaarsa practical deliverable policy briefska dadka oo go-aanka ka gaara policy changerska community workshopska practitioner guidelines public reports yaa ka faa'iideysanaya yaa waa beneficiarieska waxaa ka faa'iideysanaya policy makers dowladda dadka go-aanka gaara oo sharciyada sameeya community organizationska industry practitionerska shaqaalaha warshadaynta future researchers iyo kuwa kaa dambeeya oo idana suubin doonaan cilmi baaristan lasting impact markaa muxuu hadhow researchkaaga loogu talagelaya inuu noqdo mid noqdo lasting impact oo sameeyo wax la taaban karo impact waa iga dhuma af soomaaliga dhulkaanito ku halawnay impact waxay ahayd influence on policy inuu yani dowladda
bolisigeeda wax ka bedelaayo, practice oo la sameeyo, shaqooyinka la sameeyo, caafimaadka hadday tahay waxbarashada, improvement suubiyo, enhance public understanding bulshada inuu describe expected result meesha ku qeexe waxa la filaya inay kasoo baxaan without predicting precise findings adoo markaas qeexin wax la yani waxaas hubaal waaye adoo dhihin ilaa research le waaye. Explain how your research will be disseminated and used sida loo isticmaali karo research dadka dambeeya ama dadkan oo dhan ka faa'iideysanayo. Case-ka ka dhig mid mustaqbalka dad badan anfacayo oo academic exercise dhaafsiisan. Marka waxyaabahaas dhan aa ugu talagelaysaa research markaa suubinaysid academically. Final checklist markaa waxa dhan suubisay intaas aan soo marnay final checklistga wuxuu noqonaa essential elements waxyaabaha oo muhiimka essentialka follow work limit arkaha qorays sharciga lagu qoro raac required formatkee ayaga rabaa in loo soo qoro. Title is specific titlekaaga waa inuu mid gaara noqdaa clear oo cad compelling oo soo jiidana dadka 10 ilaa 15 xaraf titlekaaga inuu ahaado because titlekaaga dadka muxuu ahaa sameeyo. One crispy researchable question clearly stated meesha inaad ku cadaysa hal su'aal oo khatar ah oo ayaga xitaa ka yaabsanaysa dadka la kulmaayo. Method are detailed, feasible and appropriate. Methodskan waxaa ka dhigaysaa mid detailed ah oo la arki karo oo la taaban karo oo appropriate ah. Timelinekaaga realistic ma yahay waqtigaa u qabata mashruucan iyo qorsheyntiisa. Ethically sharciyanka inaad ilaalisid sidaa u address garaynaysa. References waxaa laga rabaa inay referenceska present yihiin recent iyo properly formatted wax oo hadda taagan wax mar dhow ahaa oo laisku qaabeeyey loona taaloor gareeyey ama loo qaabeeyey explicit to funded priorities program stage marka dadka lacagta bixinaya ama jaamacadda scholarship ku siinaysa. Common mistakeska oo dadka badankood ku dhaco ardayda noocan oo kale ah oo la ogyahay oo la qoray waxaa ka mid ah over ambitious scope qofkii oo aad excited oo ambitious oo too many variable regions questions ka buuxinayo. Missing an adequate ethical consideration asagoo markaas luminayo waxyaabihii adequate-ka ahaa ethically wixii la tixgelinaya shuruudihii loo dhigay ama ciddaas waxay fiirinayeen ku fangareynaysa ama jaamacaddaas inuu qofka bodo arday cusub waayo oo dhiiggiisa boil karaynayo oo excited ah. Generic proposal not tailored to specific funded or program project horu qorto cid kale u qortay inaad cidaana la wadaagin. Mid generic waxaa lagu dhahaa organic mid ah oo generic oo markaas u suubisay oo loo taaloor gareyn oo loo sameyn dad kale funders ama program kale loo sameyn waa u fariisanay waa u qoray shuruudooda ugu qoraysaa. Excessive jargon eliminate non special reviewers jargonka hadallada oo aan muhiimka ahayn inuu kaasoo kale lama rabo. Insufficient detailed yani waa inaad kusoo koobtaa warbixinta iyadoo si faahfaahsan u qoran. Hadduu unclear waxaagoo aan clear ahayn unfocused oo aan si fiican yani loo eegin oo focuska loo saarin su'aalaha sameynaysid. Final step maxaa ah hoos waxaa ku qoran write your first draft marka hore draftigaaga samee raac structureka lagu qoro qolada hadda u qoraysa researchkan ama ujeedada ku raadinayso. Blueprint ku samee 3 jeer ku noqo. One is for structure and logistic marka koowaad waxaa ka fiirinaysaa structureka suu qoran yahay iyo logistic. Marka labaad clarity and flow. Marka saddexaad grammar iyo formatting grammarkaaga iyo formaalada u qortay. Haddii aad intaas markaad gaartidna qof mentor ama saaxiibka ama macallin ku ah iga fiirdi before submission. Clarity beats waxaaga markay kala cad yihiin fancy language every time. Qofka inuu luuqad oo khatar ah oo iska dhigdhigo waxaa ka fiican clarity waxa inay mugdi ku jirin ee nadiif luuqadda hadba saa u qoraysa muhiim ah. Intaas itaan kusoo koobaya waana mahadsantihiin dadkii ka faa'iidaysan lahaa allah idinka dhigo. Linkiga descriptionka raac waa soo dhigayaa qaar ingiriisi ku qoran intaan af soomaaliya isku day inaan sameeyo.
waa idin salaamayaa dhammaantiin mahadsanid